xaqiiqooyinka dalka Imaaraadka Carabta. Dalka Imaaraadka Carabtu waxa uu ku yaalaa bariga dhexe ee qaaradda Aasiya, waxaana ku yaalaa gaar ahaan jasiiradda Carbeed. Wuxuu xuduud la leeyahay dalalka Sacuudiga iyo Cumaan. Dalka Imaaraadka Carabta waxa uu ka kooban yahay 7 imaaradood, ta ugu yarna waxa la yiraahdaa Ajmal. Caasimadda dalka Imaaraadka Carabtu waa Abu Dhabi. Dalka Imaaraadka Carabtu waa dal kulul, isla markaasina biyuhu ku yar yihiin. Biyaha dalkaasi cabaan waxaa laga sameeyaa biyaha badda kuwaas oo milixda laga saaray. Qarnigii 7aad dhulkan waxaa gaadhay diinta Islaamka. Qarnigii 19aad Ingiriiska ayaa soo degay xeebaha dalka Imaaraadka Carabta, isagoo heshiis la galay odayaasha halkaasi xukumayay, isla markaasina muddo halkaasi joogay. Laakiin 1850kii waxaa dalka ka bilaabmay baadhista macdanaha iyo gaasta. Dhaqaalaha dalkaasina kor ayuu u kacay. 1968 Ingiriiska ayaa dalkan kala baxay ciidamadiisii. 2 Diseembar 1971 waxaa aasaasmay dalka Imaaraadka Carabta, waxaana ku midoobay 7 imaaradood oo markii hore kala madax bannaanaa, isla markaasina mid kastaba xukun gaar ah ay lahayd, kuwaas oo ay xukumayeen oday qabiilo. Midowgan waxaa u sabab ahaa Sheikh Said bin Al Nahyan oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee ay yeelato dalka Imaaraadka Carabtu. Imaaraadka Carabtu waxa uu leeyahay maamul iyo sharciyo kala duwan oo u gaar ah imaarad kasta. Dalka Imaaraadka Carabtu waxa uu furfuray siyaasaddiisa arrimaha dibadda, waxayna meelo badan oo adduunyada ka mid ah ku leeyihiin saameyn dhaqaale. Dalkan dhaqaalihiisu waxa uu ku tiirsan yahay saliidda iyo kheyraadka dabiiciga ah. In sanadahan dambe waxa uu kor u qaaday dalxiiska iyo tamarta la cusboonaysiin karo. Sidoo kalena waxa uu maal gashaday dalal badan oo ku yaala qaarado kala duwan oo caalamka ka mid ah. Dalkan waxa ku yaala dhismaha ugu dheer caalamka oo la yiraahdo Burj Khalifa. Sidoo kalena waxa ku yaala mid ka mid ah hoteelada ugu caansan caalamka oo la yiraahdo Burj Arab. Sidoo kale waxa ku yaala moolka ugu weyn caalamka ee la yiraahdo Dubai Mall. Dalkan Imaaraadka Carabta inaad noqoto muwaadin Imaaraati ah ma aha mid fudud, laakiin sababaha ugu fudud ee lagu heli karo muwaadinimada dalkaasi waxaa ka mid ah ninka Imaaraatiga haddii uu guursado gabar ajaanib ah, markiiba waxa uu heli karaa muwaadinimada dalkaasi. Hase yeeshee, haddii gabadh muwaadinad Imaaraati ah ay guursato nin ajaanib ah, iyada way adag tahay sida ninkeedu ku noqdo muwaadin Imaaraati ah. Baasaboorka dalka Imaaraadka Carabta waxa uu ka mid yahay baasaboorada ugu qaalisan caalamka, waxaana bilaafiisa lagu tegi karaa in ka badan 120 dal oo caalamka ah. Dalka Imaaraadka Carabta xagga maamulka waa ka duwan yahay dalalka kale ee caalamka. Waxyaalaha xiisaha leh waxaa ka mid ah dhammaan imaaradaha dadka madaxda u ahay waxay madaxweyne ka noqon karaan dalka Imaaraadka Carabta. Dalka Imaaraadka Carabtu ma leh xisbiyo siyaasadeed kuwaas oo ku loolama maamulka dalka, laakiin waxa uu leeyahay guddi ka kooban 7 imaaradood kuwaas oo had iyo jeer jaangooya siyaasadda dalka Imaaraadka Carabta iyo cidda madax ka noqon doonta, waana madaxa ugu sarreeya ee siyaasadda dalkaasi. Waxyaalaha kale ee xiisaha leh waxaa ka mid ah dumarka ayaa xilal ka haya dalka Imaaraadka Carabta. Ilaa imikana waxaa xilal haya ilaa 9 dumar ah oo ka mid ah golaha wasiirada ee dalka Imaaraadka Carabta. Wasiirada imika ku jira waxaa ka mid ah Shimaal Mashruuci oo xilkan qabatay 2016, waana qofkii ugu da'da yaraa ee xilka qabta dalkaas, waxayna da'deedu ahayd markii ay xilka qabatay 22 jir.